بسم الله الرحمن الرحيم. لما مدني مروي وسلامتي waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida fiican ay isku aabsheen iyo sida isku habayseen in munaasabadan soo tageysaan ay isku yimaadaan dhammaan qurbo-joogga Somaliland ee ku aadan Netherlands-ka. haddii aan ku bilaabo mahadnaqaa kadib sidaa ogtiin dalkeennii hooyo waxaa ka socda dimuqraadiyad bilaabmaysa oo imika u dhalanaysa si fiicanna u socota taas oo dimuqraadiyaddaas doorashooyinka la galay ee ay u horeeyeen kii dowladaha hoose ee deegaanka iyo kii madaxweynaha lagu doortay. doorashooyinkaasu waxay ahaayeen qaar si fiican inoogu dhacay, nabadgelyana ku dhacay. sidii uu sheegay abwaankii gabayguna waxaad moodaysay in markaa marxaladii qabaa'ilka laga gudbayey oo imika ay u gudbayaan dadku in axsaab ay noqdaan. sida ka warqabtaan 6 xisbi ayaa markii ugu dambeysay galay tartankii. markaa 6-3 ayuunbaa constitutionka ama sharcigu ogolaanayay inay noqdaan official. marka doorashooyinkii golaha deegaanka ee degmo kastaba Hargeysa oo kale 25 xildhibaan ama council members ayaa ka soo baxay oo degmooyinka waxa loo kala qaadayay A iyo B iyo C. 25 kaas marka waxaad garan kartaa in ay ka soo kala baxeen 6 xisbi oo kala badnaadaan. oo good example haddaan siiyo xisbiga udub oo kale 11 buu ahaa, hormood oo kale 4 buu ahaa ka soo galay, xisbiga ucid 3 baa ka soo galay, kulmiye 4 baa ka soo galay, asad 1 baa ka soo galay, sahan xisbiga la odhan jirayna waxaa ka soo galay 2. marka la isku geeyo 6 xisbi 25 ayaa ka soo baxay golaha deegaanka. runtii 3 quraana la rabay inay official noqdaan marka dambe oo strategy fiican oo la dhigay lahayd. Allah naxariistee madaxweynihii hore maxamed xaaji ibraahim dagaal strategy uu sameeyay lahayd in markaa 3 dambe oo official ay noqdaan. 3 xisbun baa iminka jira oo official ah. taa waxaan ka leeyahay in dowladaha hoose especially marka anigu aan Hargeysa ka hadlaya anigoo had iyo gobolna yani on behalf of maxay 6 gobol ee kale had iyo goor uu hadla oo dowladaha hoose ay leeyihiin association dowladaha hoose jiraan 6 gobol ee Somaliland. had iyo goor Hargeysa kuma koobay waan iyagana waan u hadalaa had iyo goor oo markaa shirarka kale maadaama aanu caasimadii aan joogo chance haysto waxaan represent gareeyaa dowladaha hoose oo dhan 6 gobol. marka waxaan ka wadaa sida waan sheegay qabiilkii waynu ka baxnay xisbiyeen nahay imika 25 xisbi baan 25 kaygaasoo 6 xisbi ahayn means dadka markaa iyo axsaabta waa nuu simanahay anagu markaan kula deegaanahay. marka hadii goor waxaan nagala aadan hadii goor inaanu deegaankaas wixii community-ga ayaan represent gareynaa oo qof kastaba cod 5,000 oo qof ku fadhiya kursiga. waxa weeye markaa dadka aan matalo ayaan doonaynaa sidii wax loogu qaban lahaa iyo sidii dimuqraadiyaddaas basic-ga anagoo ka turjumayna aanu had iyo goor baahidooda waxqabadkooda iyo daryeelkooda sidii aanu samayn lahayn baan had iyo goor ku fikirnaa.
iyadoo ay markaa dadweynihii iyo dadkiina isu kaamid yihiin maadaama aan represent karayno taa markaa ka gudbo tii baarlamaankuna doorashadii baarlamaankuna way soo socotaa haddii alla idhaa sida ugu suurtaha ay u suurtagalka ayay u dhaci doontaa insha allah taasna waynu ogaan doonaa waxaan rajaynayaa inay si fiican ugu dhacdo